Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Qisada aynu maanta ka sheekayn doonno waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee taariikhdii nebiyullaahi Muusa calayhi salaam. Waa qisada mucjisadii 12 ilood ee biyaha ahaa ee Alle subxaanahu wa tacaala ka soo burqiyey dhagaxii adkaa. Qisadan waxaa si cad u sheegay Qur'aanka Kariimka ah. Waxaa kaloo dhacdadan lagu xusay nusuus ama qoraallo taariikhi ah oo ku jira cahdigii hore, balse su'aasha weli taagan ayaa waxay tahay: xaggee ayay dhab ahaantii ku yaaleen ilahaasi? Weli ma raadkoodii ayaa jira, mise waxay ka mid noqdeen siraha aysan taariikhdu weli xallinin? Inta aynaan jawaabtaas gaarin, aan marka hore dib ugu noqonno dhacdadii mucjisada ahayd ee Qur'aanku inooga sheekeeyey. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Aayaddan weyn waxay ka warramaysaa mid ka mid ah mucjisooyinkii ugu waaweynaa ee Alle subxaanahu wa tacaala ku taageeray nebigiisa Muusa calayhi salaam. Markii reer banu Israa'iil ay safar dheer ku jireen, biyo la'aantuna ku adkaatay, wuxuu nebi Muuse calayhi salaam baryay rabbigiisa subxaanahu wa tacaala. Markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala ku amray in uu ushiisa dhagaxa ku dhufto. Isla markiiba Alle subxaanahu wa tacaala amarkiisa waxaa soo burqaday 12 ilood oo biyo ah. Ma ahayn hal il oo keliya, waxay ahaayeen 12 ilood oo kala madaxa bannaan. Sababtuna waxay ahayd in qabiiladii banu Israa'iil oo ahaa 12 qabiil uu mid walba yeesho il u gooni ah oo ay ka cabaan. Waxaana sidaas looga hortagay muran iyo isqabqabsi ka dhalan lahaa biyaha. Tani waxay ahayd naxariis kale oo Alle subxaanahu wa tacaala u muujiyey, inkastoo ay marar badan ku caasiyeen. Qisadan cajiibka ah ma ahan mid Qur'aanka oo keliya lagu sheegay. Waxa la yaabka leh ayaa ah in dhacdadan sidoo kale lagu xusay qoraallada cahdigii hore. Waxaa halkaas lagu sheegay in reer banu Israa'iil ay gaareen meel lagu magacaabo Iiliim, halkaas oo ay ka heleen 12 ilood oo biyo ah iyo 70 geed oo timir ah. Isku ekaanshaha u dhexeeya Qur'aanka Kariimka ah iyo qoraallada ama nusuustan qadiimiga ah waxay dhalinaysaa su'aalo muhiim ah. Ma isla goobtii baa laga hadlayaa, mise waa laba dhacdo oo kala duwan? Tani waa mid ka mid ah doodaha ugu waaweyn ee culimada taariikhda iyo waxyaabaha qadiimiga ahi ilaa iyo maanta ka baarandegayaan. Si aynu arrintaas u fahanno, waa in aan dib ugu noqonnaa bilowgii socdaalkii nebiyullaahi Muusa calayhi salaam. Kadib markii Alle subxaanahu wa tacaala uu halaagay Fircawn iyo ciidankiisii, isla markaasna uu kala jeexay baddii weynayd si ay banu Israa'iil uga gudbaan, Nebi Muuse calayhi salaam wuxuu qoomkiisa ula dhaqaaqay dhanka dhulkii barakaysnaa. Safarkaasi ma ahayn mid sahlan. Wuxuu ahaa safar dheer oo ay ka buuxeen gaajo iyo harraad iyo kulayl daran iyo imtixaanno badan. Inkastoo Alle subxaanahu wa tacaala uu indhahooda ku tusay mucjisooyin waaweyn, haddana qaar badan oo reer banu Israa'iil ka mid ahi ma aysan muujinin adkaysi iyo tawakkul dhab ah. Markii loo sheegay in ay galaan dhulkii uu Alle subxaanahu wa tacaala u qoray, waxay ka baqeen dadkii xoogga badnaa ee halkaas degganaa, waxayna nebigooda ku yidhaahdeen hadal aad u fool xun. Qaala Allahu tacaala: qaaluu yaa Muusaa innaa lan nadkhulahaa abadan maa daamuu fiihaa fadhhab anta warabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun. Reer banu Israa'iil waxay diideen amarkii Alle subxaanahu wa tacaala. Waxay ka baqeen cadowgooda, waxayna nebigoodii kula hadleen hadal aanan munaasib ahayn. Waxay ku yidhaahdeen, adiga iyo rabbigaaga taga oo soo dagaalama, annaguna halkan ayaan iska sii fadhinaynaa. Hadalkaasi wuxuu muujinayay caasinimo iyo kalsooni darro aad u weyn.
sidaas darteeda wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku ciqaabay tiiha oo ahaa in ay ku dhex wareegayeen saxaraha muddo 40 sano ah, balse xitaa inta ay ku guda jireen ciqaabtaas naxariista alle subxaanahu wa tacaala kama aysan joogsanin. wuxuu siinayay cunto, wuxuu siinayay hoos ama har, wuxuu siinayay biyo ay cabaan, wuxuu siinayay mucjizooyin aanan dhammaad lahayn. mid ka mid ah mucjizooyinka ugu waaweynna wuxuu ahaa 12 ilood ee biyaha ahaa. culimmada tafsiirku waxay isku raaceen in tirada 12 ilood aanay ahayn tiro iska timid. wax walba xikmad ayuu alle subxaanahu wa tacaala u sameeyey. bani israa'iil waxay ahaayeen 12 qabiil. qabiil kastana waxaa la siiyey il u gaar ah. sidaas darteeda qof walba waa uu ogaa halka uu biyaha ka cabbayo. la iskuma qabsan jirin, mana lagu murmi jirin. qof walbana wuxuu lahaa qaybtiisa. si cad ayuuna qur'aanku arrintaas u sheegay markii uu yidhi qad calima kullu unaasin mashrabahum. taas macnaheedu waa in qabiil walba uu garanayay isha biyaha ee loo qoondeeyey. taasina waxay ahayd nidaam ka yimid xagga alle subxaanahu wa tacaala. muddo qarniyo badan ah ayaa dhacdadan ka soo wareegatay, balse waxaa isweydiin mudan hal su'aal oo muhiim ah. xaggee ayay maanta ku dambeeyeen 12 ilood ee biyaha ahaa? dadku badankoodu waa ay yaqaanaan qisadii nebiyullaahi muusa calayhi salaam, balse wax badan kama oga halka ay ilahaasi dhab ahaantii ku yaalleen. si la mid ah sidii ay u qarsoomeen meelo kale oo badan oo la xiriiray taariikhdii nebiyullaahi muusa calayhi salaam, sida goobta looxyadii towreedka iyo qisada dibigii saamiriga iyo dhacdooyin kale oo weli cilmi baarayaashu ay ku mashquulsan yihiin, ayay sidoo kale meesha saxda ah ee ilahani ay ku yaalleen u noqotay arrin dood badan dhalisay. su'aalaha weli taagan baa waxay yihiin xaggee bay dhab ahaantii ka soo burqanayeen 12 ilood ee nebi muuse calayhi salaam? ma jiraan wax raad ah oo maanta laga heli karo, mise wakhtiga iyo isbeddellada dabiiciga ah ayaa gebi ahaanba tirtiray? cilmi baarayaal badan baa waxay rumaysan yihiin in jawaabaha su'aalahan laga raadin karo dhulka Masar, gaar ahaanna jasiiradda Siinaay ama Saynaa. waxay sheegayaan in sirta goobtan ay weli ku duugan tahay saxarahaas ballaaran. sida aan horay u soo sheegnay, jiritaanka mucjisada 12 ilood dhinaca diinta wax muran ah kama jiro. qur'aanka kariimka ah ayaana si cad u xaqiijiyey, balse dooddu waxay ku saabsan tahay goobta juqraafiyadeed ee ay ku yaalleen. sababtaas awgeed, culimmada taariikhda qadiimiga ah iyo juqraafigu waxay muddo 10 sano ah u kala qaybsameen 2 aragtiyadood oo waaweyn. aragtida koowaad waxay qabtaa in ilahaasi ay ku yaalleen dhulka Falastiin ee taariikhiga ah ama dhinaca bari ee waddanka Urdun. aragtida labaadse waxay ku doodayaan in goobta saxda ahi ay ahayd saxaraha Siinaay ee dalka Masar. wallaahu aclam. waxaa la yidhi markaad maanta gaarto jasiiradda Siinaay oo dadka deegaanka aad weydiiso meel lagu magacaabo Caynu Muusa, dad badan waxay si kalsooni leh kuugu sheegi doonaan halka ay ka soo burqadeen ama ay ka soo burqanayeen ilihii nebi muuse calayhi salaam. waxay ku geyn doonaan goobtaas iyagoo maraya waddo dheer oo saxare ah. waddadaasi waxay qiyaastii u jirtaa 35 kiiloomitir tunneelka la yidhaahdo Axmed Xamdi. ugu dambayntiina waxaad gaaraysaa meel maanta loo yaqaano Cuyuunu Muusa ama ilihii nebi muuse. markaad halkaas tagto waxaad arkaysaa baa la yidhi ceelal iyo ilo biyo ah oo weli jira. hagayaasha deegaanka ayaa kuu sheegi doona in waxa maanta muuqda aysan wada ahayn dhammaan ilihii hore. waxay sheegayaan in booqdayaashu ama dalxiisayaashu ay maanta si cad u arkaan 4 ilood oo keliya. goobaha kale qaarkoodna waxaa ka socda dayactir iyo dib u habayn, qaar kalena biyihii ku jiray waxay noqdeen kuwo aanan la cabbi karin sidii hore. taasi waxay keentay in dad badani ay isweydiiyaan, ma dhabba in kuwaani ay yihiin ilihii uu qur'aanku sheegay, mise waa ilo kale oo wakhtigu isku beddelay?
dad badan waxay u qaataan in sheekadani ay tahay oo keliya sheeko ay jiilba jiil uga sheekeeyeen dadka deegaanka, balse xaqiiqadu taas waa ay ka ballaaran tahay. Waxaa jiray cilmi baarayaal iyo culimo reer Yurub ah oo qarniyadii 18aad iyo 19aad booqday goobta la yiraahdo Saynaa ama Siinay, waxayna buugaagtooda ku qoreen in halkaasi ay ku arkeen ilo biyo ah. Mid ka mid ah dadka ugu caansanna wuxuu ahaa khabiirka Ingiriisiga ah ee cilmiga masaaridii hore iyo cilmiga bulshada oo lagu magacaabo Richard Bucock. Markii uu booqday goobtan wuxuu ku tilmaamay in ay tahay meel ay yaalaan 4 ilood oo biyo macaan ah. Wuxuu sheegay in hareeraheeda ay ka baxayeen geed timireedyo badan. Sharaxaadiisu waxay si la yaab leh ugu dhowdahay wixii lagu sheegay nusuustii qadiimiga ahaa. Taasina waxay sii kordhisay doodda ah in goobtani laga yaabo in ay tahay halkii mucjisadu ay ka dhacday. Waxaa kale oo ka mid ahaa dadka sida weyn u difaacay aragtidan khabiirka reer Masar ee cilmiga qadiimiga ah Dr. Cabduraxiim Rayxaan. Wuxuu muddo dheer daraasad ku sameeyey koonfurta Siinay. Wuxuu soo ururiyey caddaymo taariikheed iyo juqraafiyadeed iyo aasaar qadiimi ah. Sida uu qabo dhammaan caddaymahaasi waxay si weyn ula jaanqaadayaan jidkii ay mareen reer Banu Israa'iil. balse si aynu dooddiisa u fahanno waa in aan dib ugu noqonnaa bilowgii qisada. Waa in aan isweydiinnaa maxaa sababay in goobtaas uu Nabi Muuse calayhi salaam biyaha ugu baryo qoomkiisa. Su'aashaas ayaa furaha u noqonaysa fahamka dhacdadan oo dhan. Dr. Cabdiraxiim Rayxaan wuxuu aaminsan yahay in mucjisada 12 ilood aanan marnaba laga goyn karin xaaladdii adkayd ee reer Banu Israa'iil ku jireen intii ay ku dhex wareegayeen saxaraha Siinay. Waxay muddo dheer ku socdeen dhul qallalan, biyuhu aad bay u yaraayeen, qorraxduna aad bay u kululayd. Harraadkuna wuxuu gaaray heer ay dhimasho ka baqaan. Xaaladdaasi waxay ahayd mid aad u adag. Markii ay quusteen ayay nebigoodii Nabi Muuse calayhi salaam baryeen. Nabi Muusena calayhi salaam isna wuxuu u jeestay Rabbigiisa subxaanahu wa tacaala isagoo gargaar weydiisanaya. Markaas buu yimid amarkii Alle subxaanahu wa tacaala. Waxaa lagu amray in uu ushiisa dhagaxa ku dhufto. Isla markiiba waxaa ka soo burqaday 12 ilood oo kala madax bannaan. Ma ahayn hal il oo keliya. Qabiil kasta wuxuu helay il u gaar ah, sidaas darteeda cidina cid kale biyaha uguma aysan murmi jirin. Cidina xaqeeda lama duudsiin jirin. Wax walba waxay u dhacayeen si cadaalad iyo nidaam leh. Taasina waxay ahayd calaamad kale oo muujinaysa xikmadda iyo naxariista Alle subxaanahu wa tacaala. Caddaymaha ay adeegsanayaan taageerayaasha aragtidan kuma koobna oo keliya juqraafiyadda. Waxay sidoo kale tixraacaan qoraallada taariikhiga ah ee ku jira Tawreedka. Sida uu sheegay Dr. Cabdiraxiim Rayxaan, waxaa weli jirta meel loo yaqaano Bi'ru Maarah. Goobtani waxay qiyaastii 11 kiiloomitir waqooyi bari kaga beegan tahay Caynu Muusa. Ceelkan wuxuu caan ku yahay in biyihiisu aysan macaan ahayn. Taariikh ahaan waxaa lagu yaqaanay biyo qaraar oo aanan la cabi karin. Taasina waxay sharaxaysaa sababta ay reer Banu Israa'iil goobtaas uga guureen. Kadibna waxay u guureen meel kale oo lagu magacaabo Elim. Culimo badan waxay rumaysan yihiin in Elim ay tahay isla goobta maanta loo yaqaano Caynu Muusa. Sababtu waxay tahay in halkaas ay ka jireen biyo macaan. Waxaa sidoo kale ka baxayay geed timireedyo badan. Goobtuna waxay ahayd sida waax cagaaran oo ku dhex taalla saxarahaas qallalan. Sharaxaadan waxay si weyn ugu dhowdahay waxa ku qoran nusuustii ama qoraalladii hore. Waxayna noqotay mid ka mid ah caddaymaha ugu muhiimsan ee ay adeegsadaan dadka aaminsan in mucjisadu ay ka dhacday Siinay. Marka laga soo tago ilaha biyaha iyo goobaha qadiimiga ah, waxaa jira calaamad kale oo dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah cilmi baarayaashu u arkaan in ay xoojinayso xiriirka ka dhexeeya jasiiradda Siinay iyo qisadii Nabi Muuse calayhi salaam. Calaamaddaasina waa goobta loo nisbeeyo Nabiyullaahi Haaruun calayhi salaam.
oo ahaa nebi muuse calayhi salaam walaalkiisa. goobtan waxay ku taallaa deegaanka Saint Catherine ee jasiiradda Sinai. qaar badan oo dadka deegaanka ka mid ah waxay rumaysan yihiin in goobtani ay markhaati u tahay dhacdooyinkii waaweynaa ee safarkii reer banu Israa'iil. waxay ku doodaan in maadaama nebi haaruun calayhi salaam uu inta badan la socday walaalkiis nebi muuse calayhi salaam, ay suuragal tahay in dhacdooyinka muhiimka ah ee safarkaasi ay halkaas ka dhaceen. si kastaba ha ahaatee, waa in arrintan si cilmiyeysan loo eego. qur'aanka kariimka ah iyo kutubta taariikhda islaamku waxay tilmaamayaan in nebi haaruun calayhi salaam uu ka horgeeriyooday nebi muuse calayhi salaam. waxaa la wariyey in markii wakhtigii geeridiisu ay soo dhowaatay, alle subxaanahu wa tacaala uu nebi muuse calayhi salaam u waxyooday in cimriga walaalkiisu uu dhammaanayo. markaas buu nebi muuse calayhi salaam walaalkiisa ula baxay buur ka mid ahayd buuraha. kadibna waxay gaareen god ku yaallay buurta dusheeda. halkaas ayay ahayd goobtii uu nebi haaruun calayhi salaam ku geeriyooday, sida ay sheegeen qaar ka mid ah taariikhyahanada islaamku. balse su'aasha muhiimka ahi waxay tahay, goobta maanta lagu sheego in ay tahay qabrigii nebiyullaahi haaruun calayhi salaam, ma iyadaa dhab ahaan ah halkii lagu aasay? jawaabta cilmi baarayaashu waa mid taxaddar leh. waxay yidhaahdeen, lama hayo wax caddayn qadiimi ah ama taariikheed oo si go'aan ah arrinkaas u xaqiijinaya. khabiirka waxyaabaha qadiimiga ah ee reer Masar, Dr. Cabdiraxiim Rayxaan, buuggiisa At-Tajalliyaat Ar-Rabbaaniyah fi al-Waadi al-Muqaddasi Tuwa, wuxuu ku sheegay in goobtan laga yaabo in ay tahay goob xasuus ahaan loo dhisay, ee aysan ahayn ama aysan noqon karin qabrigii dhabta ahaa ee nebiyullaahi haaruun calayhi salaam. arrintaani ma ahan mid ku cusub dunida islaamka. dalal badan oo carbeed iyo islaam ayaa waxaa ku yaala goobo loo nisbeeyo ambiyada iyo saalixiinta, balse marar badan lama hayo daliil sugan oo xaqiijinaya in meydadkoodu ay halkaas ku aasan yihiin. sidaas darteeda, culimmadu waxay ku booriyaan dadku in ay kala saaraan waxa xaqiiqo taariikheed ah iyo waxyaabaha ah caadooyin ama sheegashooyin soo jireen noqday. inkastoo dooddu weli ay taagan tahay, haddana cilmi baaris iyo qodista waxyaabaha qadiimiga ah ayaa ilaa iyo maanta ka socota deegaanada Caynu Muusa ee Sinai. ujeeddadu waa in la ogaado xaqiiqada taariikhiga ah ee goobtan, iyo in la helo raadad cusub, iyo in la isbarbar dhigo xogta nusuusta qadiimiga ah iyo xogta juqraafiyadda iyo qoraallada diimaha. balse Sinai ma ahan goobta keliya ee lagu muransan yahay. waxaa jirta meel kale oo dood xooggan ka taagan tahay. goobtaasna waa Waadi Muusa oo dalka Urdun ku yaalla. Waadi Muusa waa dooxo caan ah oo ku taalla koonfurta boqortooyada Urdun. waxay ka tirsan tahay gobolka Macaan, waxayna aad ugu dhowdahay magaalada taariikhiga ah ee Albatra. marka qofku uu halkaas tago, wuxuu dareemayaa in dooxadu ay ilaalinayso magaaladan qadiimiga ah. waxay ku hareeraysan tahay buuraha dhaadheer ee cajiibka ah, waxaana ku yaalla geedo saytuun ah oo boqolaal sano jira. balse quruxda dabiiciga ah ma ahan sababta keliya ee goobtani ay caan u tahay. waxay kaloo xambaarsan tahay taariikh soo taxnayd kumannaan sano. Waadi Muusa waxaa soo maray ilbaxnimooyin badan. waxaa ugu caansanaa ilbaxnimadii Anbaatiyiinta, kuwaasoo dhisay magaaladan cajiibka ah ee Albatra. kadibna waxaa yimid Roomaankii, kadibna boqortooyadii Bayzantiyiinta. intaas kadibna waxaa xigay xilliyadii kala duwanaa ee Islaamka. sidaas darteeda, goobtani waxay leedahay taariikh aad u dheer oo hodan ah. balse waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in magaca dooxadan laftiisu uu ku xiran yahay nebiyullaahi Muusa calayhi salaam. taariikhyahankii weynaa ee muslimka ahaa Yaaquutul Xamawiy, buuggiisii Mucjamul Buldaan, wuxuu ku sheegay in Waadi Muusa loogu bixiyey magaca nebi muuse calayhi salaam. sida uu qoray, markii ay dhammaatay muddadii 40 sano ahayd ee tiiha ama wareeggii saxaraha, nebi muuse calayhi salaam iyo intii ka hartay reer banu Israa'iil waxay degeen dooxadan.
Sheegashadan ayaa noqotay mid ka mid ah sababaha ay culimo badan Waadi Muusa ugu xiraan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee noloshii Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam. Balse waa in la ogaadaa in tani ay tahay aragti taariikheed ee aanay jirin daliil cad oo Qur'aan ama sunno ah oo si toos ah u magacaabaya goobtan. Waxaa jira sidoo kale riwaayado taariikheed oo sheegaya dhacdo kale oo xiise leh. Waxay sheegayaan in markii Nabi Muuse calayhi salaam uu dareemay in geeridiisu ay soo dhowaatay, Alle subxaanahu wa tacaala uu ku amray in uu mar kale ushiisa dhagaxa ku dhufto. Kadibna dhagaxa intuu qaaday ayuu wuxuu la koray mid ka mid ah buuraha dusheeda. Markii uu usha ku dhuftayna waxaa ka soo burqaday 12 ilood oo u dhiganta tirada qabiiladii reer Banu Israa'iil. Qaar ka mid ah riwaayadahan xitaa waxay sheegayaan in ilahaas ay markii dambe isku beddeleen 12 tuulo oo deegaankaas ku wareegsan. Wallaahu aclam. Waxaa muhiim ah in la caddeeyo in riwaayadahani aanay lahayn daliil sugan oo laga soo wariyey Qur'aanka ama sunnada saxiixa ah. Sidaas darteeda waxaa loo qaataa oo keliya xog taariikheed oo u baahan in la hubiyo iyo baaritaan dheeraad ah. Dhagaxii la sheegay in mucjisadu ay ka dhacday maanta lagama hayo wax raad ah oo la hubo. Waxa keliya ee laga helayo waa qoraallo qadiimi ah oo tilmaamaya in uu cabbir ahaan la ekaa madaxa orgiga, balse xogtaasna ma lahan caddayn la isku hallayn karo. Qoraallo badan oo qadiimi ah iyo kuwo casri ah ayaa sii xusay xiriirka ka dhexeeya Waadi Muusa iyo Nabi Muuse calayhi salaam. Waxaa ka mid ah buug uu qoray cilmi baare lagu magacaabo Al-Mahdi Cabdurawaadiya, kaas oo ay daabaceen guddiga sare ee qorista taariikhda ee waddanka Urdun. Buuggaas oo ciwaankiisu yahay Mudawwanatu Nusuus al-Juqraafiya limuduni al-Urdun wa quraaha, wuxuu soo ururiyey qoraallo juqraafiyeed oo ka hadlaya magaalooyinka iyo tuulooyinka Urdun. Qoraagaasi wuxuu xusay in dhagaxii Nabi Muuse calayhi salaam uu watay intii lagu jiray socdaalkii Banu Israa'iil uu ahaa dhagaxii ay biyuhu ka soo burqan jireen mar kasta oo Alle idmo subxaanahu wa tacaala. Sida uu sheegay, markii socodkii uu dhammaaday ayaa dhagaxaas lagu reebay buuraha ku hareeraysan Waadi Muusa. Hase yeeshee waa in la ogaadaa in tani ay tahay xog taariikheed oo ay wariyeen qaar ka mid ah qorayaasha, mana jiro daliil sugan oo Qur'aanka ama sunnada ka yimid oo arrintaas xaqiijinaya. Sidaas darteeda, xaqiiqadeeda waxaa og Alle subxaanahu wa tacaala oo keliya. Waxaa la yidhi haddii maanta qof uu booqdo Waadi Muusa, meesha ugu caansan ee biyaha laga helo waa Caynu Muusa. Waa ilbiyood oo caan ka ah gobolka oo dhan. Dadka deegaanka iyo kumanaan qof oo halkaas yimaada waxay rumaysan yihiin in isha ay xiriir la leedahay ilihii lagu sheegay Qur'aanka Kariimka ah. Qaar waxay qabaan in ay tahay mid ka mid ah 12 ilood. Qaar kalena waxay yidhaahdeen waa goobtii ay ku soo ururayeen ilahaas biyahooda. Balse sida aan marar badan sheegnay, arrintaas weli waxaa ka taagan dood cilmiyeed, mana jiro daliil go'aan kama dambays ah laga gaaray. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaqiiqo taariikheed oo aanan la inkiri karin. Ilabiyoodkan wuxuu qarniyo badan door weyn ka ciyaaray nolosha dadka deegaanka. Ilbaxnimooyin kala duwan ayaa ka faa'iidaysan jiray biyihiisa. Bulshooyin badan ayaa ku tiirsanaa, beerihii ayaa lagu waraabin jiray. Dadkii safarka ahaa ayaa ka cabi jiray, noloshooda oo dhanna biyahaas ayay ku tiirsanayd. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu yaabka badan ee weli ka jira Waadi Muusa waa habka biyaha loo qaybsado. Cilmi baare lagu magacaabo Xasan Haaruun al-Xasanaat ayaa wuxuu sheegay in ilahan biyahooda ilaa iyo maanta loo qaybiyo hab cadaalad ah oo soo jiray boqolaal sano. Qabiil kasta ama reer kasta wuxuu leeyahay waqti cayiman oo uu biyaha isticmaalo. Qaybintaasi waxay ku salaysan tahay maalmo iyo saacado si cadaalad ah loo dejiyey. Qof walbana wuxuu helayaa qaybtiisa iyadoo aanan cidna lagu dulminaynin. Dad badan ayaa arrintan u arka in ay si la yaab leh ugu eg tahay nidaamkii lagu sheegay Qur'aanka Kariimka ah, kaas oo qabiil kasta uu lahaa ishiisii gaarka ahayd. Inkastoo aanan la oran karin waa isla nidaamkii hore,
haddana waxay muujinaysaa sida ay biyuhu muhiim ugu ahaayeen bulshada deegaankaas ku noolayd. Markii laga hadlayo ilbaxnimooyinkii sida weyn uga faa'iidaystay ilahan, waxaa ugu caansanaa boqortooyadii Anbaatiyiinta. Anbaatiyiintu waxay ka mid ahaayeen ilbaxnimooyinkii ugu horumarsanaa dunidii hore. Markii laga hadlayo maaraynta biyaha, waxay ku noolaayeen dhul saxaare ah oo aad u qallalan, balse waxay sameeyeen farsamooyin cajiib ah oo ay biyaha ku ururinayeen, ku kaydinayeen, kuna gaarsiinayeen magaalooyinkooda. Waxay dhiseen marinnada biyaha, waxay sameeyeen ceelal iyo barakado waaweyn, waxay sameeyeen dhuumo dhagaxa laga qoday oo biyaha u gudbin jiray meelaha fogfog. Taasi waxay ahayd sababta magaalada Albatra ay ugu noolaan kartay deegaan biyo yari ay ka jirto. Cilmi-baarayaal badan ayaa rumaysan in ilaha Waadi Musa ay qayb weyn ka qaateen horumarka ilbaxnimadii Anbaatiyiinta. Waxaa jira daliil kale oo dadka deegaanka ay marar badan soo qaataan. Waa masaajidka iyo maqaamka Nebi Haaruun calayhi salaam ee ku yaala buurta ugu sarreysa buuraha Albatra. Buurtan maanta waxaa loo yaqaanaa Jabalu Haaruun. Qoraallo Cibraani ah oo qadiimi ahna waxay ugu yeeri jireen Haaruuq. Taariikhyahankii caanka ahaa ee reer Rooma, Yusifus ama Josephus, ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee qarnigii 1 ee miilaadiga wax ka qoray goobtan. Kadibna taariikhyahanno badan oo Muslimiin ah iyo kuwo reer galbeed ah ayaa iyaguna booqday, waxayna wax ka qoreen muhiimaddeeda taariikheed iyo midda diineed. Qof kasta oo maanta booqda goobtaas wuxuu arkayaa dhisme qadiimi ah. Inkastoo marar badan dib loo dayactiray qarniyadii kala duwanaa, haddana qaybo badan oo ka mid ah waxay weli xambaarsan yihiin qaab dhismeedkii hore. Taasi waxay muujinaysaa in goobtu ay tahay meel fac weyn oo muddo dheer la qadarinayay. Goobtani waxay qiimo weyn ku leedahay Muslimiinta iyo Yahuudda labadaba. Muslimiin badan waxay u tagaan iyagoo aaminsan in halkaas ay ku taallo xabaashii Nebiyullaahi Haaruun calayhi salaam. Dhanka kale, Yahuud badan ayaa iyaguna u soo xajiya goobtan, waxayna halkaas ku akhriyaan ducooyinkooda iyo salaadahooda. Qaar ka mid ahna waxay goobtan agagaarkeeda ku aasaan tuquus ama calaamado diimeed iyo waxyaabo kale oo la xiriira caqiidadooda. Arrintani waxay muujinaysaa qiimaha weyn ee goobtani ay ku leedahay dadka haysta diimaha kala duwan. Balse waxaa mar kale muhiim ah in la caddeeyo, ilaa iyo maanta lama hayo wax caddayn qadiimi ah ama taariikheed oo si go'aan ah u xaqiijinaya in Nebi Haaruun calayhi salaam si dhab ah halkaas loogu aasay. Sidaas oo kale, goobta lagu sheegay Siinay iyaduna ma lahan daliil sugan. Labaduba waxay weli ku jiraan dood cilmiyeed furan. Taasina waa sababta ay cilmi-baaristu weli u socoto. Inkastoo ay jiraan doodo badan iyo aragtiyo kala duwan, haddana ilaa iyo maanta lama hayo hal caddayn oo qadiimi ah ama cilmiyeed oo si kama dambays ah u xaqiijinaysa in goobta maanta loo yaqaano Caynu Muusa ee Waadi Muusa ama tan ku taalla jasiiradda Siinay ay yihiin isla goobtii uu Qur'aanku ku sheegay mucjisadii 12 ilood. Taas macnaheedu ma ahan in mucjisada uu shaki ku jiro. Mucjisadu waa xaq uusan muran ku jirin, waayo Alle subxaanahu wa tacaala ayaa Qur'aankiisa ku sheegay. Waxa keliya ee cilmi-baarayaashu isku khilaafsan yihiin waa goobta saxda ah ee ay dhacdadu ka dhacday. Taasina waa arrin taariikheed oo weli u baahan caddaymo dheeraad ah. Haddii daraasadaha mustaqbalka iyo qodista waxyaabaha qadiimiga ahi ay helaan raadad cusub oo la isku halayn karo, waxaa suuragal ah in la ogaado meesha saxda ah ee mucjisadu ay ka dhacday. Waxaa laga yaabaa in la helo ilo kale oo qarsoon. Waxaa laga yaabaa in la helo qoraallo ama haraadi qadiimi ah oo dhacdadan iftiin cusub ku soo kordhiya. Waxaa kaloo suuragal ah in farsamooyinka casriga ah ee qodista iyo sawirrada dayax-gacmeedyadu ay soo bandhigaan xog aanan horay loo ogayn. Sidaas darteeda, indhaha cilmi-baarayaashu waxay weli ku jeedaan labadan goobood. Mid waa Cuyuunu Muusa ee Siinay, midda kalena waa Waadi Muusa ee dalka Urdun.
labaduba waxay sii ahaanayaan goobaha ugu waaweyn ee laga baarayo sirta mucjisadan. balse wax kastoo ay natiijadu noqoto, waxaa jira xaqiiqo aan isbeddelaynin. dhacdooyinkan waaweyn dhammaantood waxay ka dhaceen dhulka Bariga Dhexe, kuwaas oo qayb ka ahaa dhulkii ay ku noolaayeen ambiyadii Alleh. waa dhul leh taariikh aad u fac weyn. waa dhul ay ka bilaabmeen farriimo samada ka yimid. waa dhul ay ku noolaayeen ambiyo badan. taariikhda dhulkaasna waa qayb ka mid ah dhaxalka bani'aadamka oo dhan. mana aha wax la qarin karo ama la beddeli karo. waxaa sidoo kale muhiim ah in aynu xasuusanno qodob kale. qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah in uu kala saaro laba arrimood. midda koowaad waa waxa si cad ugu sugnaaday qur'aanka kariimka ah iyo sunnada saxiixa ah. midda labaadna waa waxyaabaha taariikhyahanadu ay ka sheekeeyaan ama cilmibaarayaashu ay ku kala aragti duwan yihiin. qur'aanku wuxuu xaqiijiyey in Nabi Muuse calayhi salaam ushiisa uu dhagaxa ku dhuftay. wuxuu sidoo kale xaqiijiyey in 12 ilood ay ka soo burqadeen. wuxuu xaqiijiyey in qabiil kasta uu helay ama uu lahaa il u gaar ah. arrimahaasi waa xaqiiqooyin diini ah oo rumayntoodu ay waajib tahay. balse magaca goobta saxda ah, buurta gaarka ah ama dooxada saxda ahi qur'aanku inooma uusan sheegin. sidaas darteeda qofka muslimka ahi waa in uu ka digtoonaadaa in uu wax aanan daliil sugan lahayn u qaato xaqiiqo la hubo. wax kasta oo aanan daliil cad lahayn waxaa habboon in la yidhaahdo Allahu aclam, ama Alle subxaanahu wa tacaala oo keliya ayaa ugu cilmi badan. waxaa laga yaabaa in uu qofku isweydiiyo, haddii aanan garanaynin meesha saxda ah ee ilahaasi ku yaalleen, maxay tahay faa'iidada ugu weyn ee qisadani ay leedahay? jawaabtu waa mid cad. qisada muhiimaddeedu ma ahan buurta magaceeda ama dooxada magaceeda. casharka ugu weyn waa awoodda Alle subxaanahu wa tacaala. waa sida uu Alle subxaanahu wa tacaala ugu gargaaray addoommadiisii markii ay quusteen. dhagax adag oo caadi ahaan aanan biyo laga filaynin ayuu Alle subxaanahu wa tacaala ka dhigay il nololeed. taasi waxay ina baraysaa in marka albaab kasta uu xirmo, Alle subxaanahu wa tacaala uu furi karo albaab uusan qofku filaynin. waxay ina baraysaa in gargaar kasta uu gacantiisa ku jiro. waxay ina baraysaa in aan marnaba laga quusanin naxariista Alle subxaanahu wa tacaala. qisada Nabi Muuse calayhi salaam waxay sidoo kale ina xasuusinaysaa in nimco kasta oo Alle subxaanahu wa tacaala bixiyo ay u baahan tahay in laga mahadnaqo. reer banu Israa'iil waxay arkeen mucjizooyin aanan tiro lahayn. waxay arkeen baddi oo kala jabtay. waxay arkeen Fircoon oo halaagsamay. waxay arkeen almannu wassalwa. waxay arkeen daruur har noqotay. waxay arkeen biyihii dhagaxa ka soo burqanayay. haddana marar badan ayay Alle subxaanahu wa tacaala ku caasiyeen. taasina waxay dignin u tahay ummad kasta oo nimco hesha. nimcada haddii aanan laga mahadnaqin waxay noqon kartaa sabab ciqaab lagu mutaysto. sidoo kale qisadani waxay ina baraysaa muhiimadda nidaamka iyo cadaaladda. wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala ka dhigay in qabiil kasta uu yeesho il u gaar ah. taasna waxaa looga hortagayay muranka iyo isqabqabsiga. waxay ahayd cashar muujinaya in islaamku dhiiri gelinayo kala dambaynta iyo cadaaladda iyo ilaalinta xuquuqda dadka. daawadayaal, ugu dambayntii waxaan isla soo gaarnay dhammaadka safarkeennii maanta ee ku saabsanaa sirta 12 ilood ee Nabi Muuse calayhi salaam. waxaan isla soo aragnay wixii uu qur'aanku mucjisadan ka sheegay. waxaan soo xusnay aragtiyaha ugu waaweyn ee cilmibaarayaashu ka qabaan goobta ay ka dhacday. waxaan barannay caddaymaha ay soo bandhigaan dadka rumaysan in goobtu ahayd Siinaay. waxaan sidoo kale soo bandhignay doodaha ama doodda kuwa aaminsan in ay ahayd Waadi Muusa ee dalka Urdun. waxaan caddaynay in ilaa iyo maanta uusan jirin daliil go'an ama go'aankama dambays ah ka gaaray goobta saxda ah. balse mucjisada lafteedu waa xaqiiqo uu caddeeyey qur'aanka kariimka ah. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.